السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaasheeda qiimaha qaalo meel kasta joogtaan kusoo dhawaada shabakada wararka Sila 24 maanta waxaan idiin haynaa faallo gaaban oo ku saabsan safiirada wadamada reer Yurub qaar ka mid ah oo Somaliland tagay lana kulmay wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Somaliland wasaaradda arrimaha guduhuna waxay sheegtay inay ka wada hadleen sidii doorashooyinka loo qaban lahaa doorashooyinkii ururadana ay Somaliland gelayso laakiin waxa muhiim ah Somaliland inay fahanto safiiradan yimi ma inta kaliya u yimaadeen maxay Somaliland markasta ka soo doonaan oo geeska kaga duwantay Somaliland iyada dalbatay inay ku biirto wadamada doorashooyinka xorta qabta ixtiraamana sharciga laakiin xaaladda ka jirta Somaliland taa ma tahay safiiradu waa farxiinsidayaasha wadamadooda waana daaqada laga galo wadanka ay wakiilka ka yihiin inkastoo Somaliland aan la aqoonsanayn laakiin fariinteedu waxay sii dhex marin jirtay wadamada reer Yurub safiirada u jooga Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti Somaliland in badan waxay isku dayday inay kasbato caalamka oo ay ku kasbato doorashooyin iyo xorriyatul qowl labadiibana xukuumadda maanta jirta ee madaxweyne Muuse uu hogaaminayaa dustbinka ama qaybta qashinka ayay dhigtay waxaanad moodaa xukuumaddu gaari iyadu ay wadato ayna ogtahay meesha ay ku tagayso inay caalamka u soo bandhigtay ay leedahay wixii aynu ku heshiinay oo dhan waan ka baxnay doorashadii ugu dambeysay Somaliland si fiican bay u iibisay caalamka oo dhamina u iibsaday Somaliland waxay noqotay mid hogaaminaysa doorashooyinka geeska Afrika marka loo eego wadamo badan laakiin wanaagaagii shalay haddii khaladkaaga maanta uu masaxo khaladkaaga maanta un baa leegaya wasiirka arrimaha gudaha wuxuu inoo sheegay in ururadii la furi doono laakiin su'aashu waxay tahay ururada yaa furaya ma dadka suuqa jooga furaya ma xukuumadda Somaliland ma u sheegtay safiirada iyo caalamkaba doorashada ay qabanaysaa noocay tahay dalkay ka dhacdo waayo cidda kala talisa doorashooyinka dadkan aynu wax ka iibinayno ee wadamada reer Yurub ama wadamada reer galbeedka doorashooyinka waxay u ixtiraamaan sida iyaga sharcigooda ugu qoran inaguna sidaynu u noolnahay ayaynu u ixtiraamnaa oo geed kasta meel buu ku baxaa maxaad ku tiraahdeen doorasho keliya oo xisbiya ayaan gelaynaa xisbiga yaa dhidiboo noqonaya yaa baalalo noqonaya haddaanu xildhibaanaba lahayn haddaanu golo deegaan lahayn ma idiin sheegeen iyagu markay idiin yimaadeen doorashada aynu doonayno inaynu galno waddanka laga galo mise Somaliland maydhan weeye Somaliland baa talo samaysaa Somaliland waxay u eg tahay in macallimiinteedii ay wax u sheegayso taageerayaasheedii garbaha hayana ee leedahay anigaa duuli karaa ee baneeya waxaana u muuqataa siyaasad jariska xoora وأنا عبد الساق أحمد جامع كنا سوق بقبيني هالكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برياني باي كتب يا عاشقا كدعي القبويان فينا عاقويان كدعي القبويان فينا عاقويان وشعب انطلق قوي قلت لا يقاني محا أدرك أدري مكا بحران adiga makubesha adiga makubesha adiga talo makadola kabaryani bayi katabyaya ashara kabaryani bayi katabyaya ashara كدعي القبويان فينا عاقويان كدعي القبويان فينا عاقويان
من تلقى جلجلا يقاني محا أدرك دلي